marka asxaabay dhalinyarta kale loo soo socdo waxaan leeyahay ayagoo la hadlin ayaa loo socdaa is ilaaliya cadaaladda waa u baahanahay Soomaaliya haddii la xishmad iyo mataqaanay wax walba aad iga haysid aan hal maalin kaa qosliyey aan hal maalin kaa farxiyey tookada waa tookeeda iga farxiyeen anaad iga farxisid inaad waxaan doonayaa aan ii badan baxaan ii istaagaan taas waxaa waaye waa baryo aad iga baryaya anigu waxaan diyaar u ahay haddii aan maanta sharma way maqlaaya haddii aan caawa xaq u dhimanayo wallaahi billaahi tallaahi diyaaraan u ahay in la igu dilo xataa. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما سومالي وين ميل بدون ذلك جوكتان الله وين وحنا كود رجينا يا عافمات يا عباد الصوبان يا عمل خيمتك ستون مراد لينا باهي مراد كي سمت خير كدي وكو حنوصلنا عافمات تامس يوكو غيريودي جنة ودقونا دي هو يقول لكو لقى غيريودي أنا سمر إيمان وكسي يوكو رشا إستا باهي رشا بركة يوكو درسو غاين رب بدنا بركة سنة سيلا مهران برشاد الصومالية يوضا مدنا الله وين ويدي سنية واحد درين كي وعاود درين يا مرنا واعيل مرنا وضنما يد ميري أهلي يدي الصومالية ولينوليهين SYL ما هكو ورد ما ذا كاسا كاميرا وانا هلي الصوماليين waxaan ugu galnay inaan ka dhalinyarada shalato laayaan daawaday muuqaal uu kaga hadlayay Sharma Boy iyo deeq darajo dulmiga loo geystay daawadu wuxuu tilmaamay xaq inuu yahay mid ku dhimanay way muuqatay maanta waka inuu geeriyoodan waxba dhaawin hadaba intaana barnaamijka faalihiisa galin bulshada Soomaaliyeed ayaan maanta dareenkooda iyo dadnimadooda iyo inta damiirkoodu nool yahay kala ogaanaya asxaabta qaaliga ah waxay la hadlayo oo nasar u dhaawacay macmaamiin yahay asxaabay waxa ay u dhacday arrinka la yidhi waxa waaye maadaama aan cadaalad iyo xaq ka hadlay oo aan ka hadlay runta jirto ee Sharma Boy iyo deeq darajo loo geystay waxa dhacday maanta markay saacad weysay hal saac haweenimo waxay soo wacay dhalinyaradaas ka koobnaayeen 8 qof waxay yiraahdeen waash baba kuwa qaar aan aqoon u leeyahay waxay yiraahdeen biyaa hadlayna shubaba markaas ku yiri haa waa diyaar mustii aqoon aad u lahaa waxa dhacday in la yiraahdo brother waxa rabaa kulaalo ana oo kulkulba ana kulaalo kala la arka Sharma Boy iyo waxyaabo ku saabsan waxa yiri brother diyaar waay wuxuu ka qabi waxa dhacday dhalinyartii ila u tago markaan u tago inay gaari igishtaan oo yiraahdo brother inta ku soo wada hadlayna ee wad waxay anigu baaburka ku sii jiro waxa liigu qorwacay in kaliya yiraahdo Axmed Rashid markii lagu wacay waxay yiraahdeen intee joogtaa waa ku ibaarayna anigu waxay siri Axmed Rashid luu maro laasu jidku ku keena miskiin liita weeyaan goobtii dulmigu geysanayay Ilaahay waa muujiyay ninkaasuna iyo Sharma Boy iyo deeq darajo waa kuwii loo soo diray ninkaas waxaan oran karaa oo qirayaa inuu yahay haliyay dhig xalaal ku dhashay raganimo iyo dadnimo iyo damiir Ilaahay siiyay isagoo caaw la jiir dilaana waxay muujinaysaa 30 kale dulmi ku dhiman lahaa noloshooda ifaysa Axmed Rashid iyo 10 kale oo aqligiisa leh oo cawaan aan rag oran karin ninka dhalinyarada ayay 10 isugu soo raaceen alashan sideeba u hadashay alashan sideeba u wareysatay alashan sideeba dulmi u hadashay anaga ka bayaala iyagoo imisa kiba badan oo gaala ah oo kana cusantooda gashay dhiiga aad ka daadiseen bulshada Nairobi joogto oo Soomaaliyeed ogaada inay ka dhidheeyaan oo inay ka hadam qashadiisu ay noqonayso mid hoog idin horseeda dadka Soomaaliyeed kaba dhamaan kuwii dadnimada iyo damiirka lahaa ee naftooda hor dhigaya dulmiga inay ka dhidheeyaan miyaad ilowdeen SYL miyaad ilowdeen kuwii xaashida la qaayay miyaad ogeydeen oo ilowdeen kuwii Etoobiyaanka hilibka ceeriin baray dhashoodii iyo dhacaankoodii iyo dhiigoodii baa noq idinkuna hoog baad ku sugantihiin haddana dhaxlaysaan dhibaatada geysateen haddaba inay ka dhalinyarada waxa isugu tagay waa 10 fulay baan u arkaa nin raga marka aad 10 u ka haysto inaan darajo lahayn dhaqan Soomaaliyeedna maaha gobonimo iyo ficilkeedna maaha haddii aad kabatid ama haddii aad cabsi aad isgelisid waxaad iska dhigaysaa qof dambiile ah ha iska dhigin qof dambiile ah maadaama aad dambi lahayn because Axmed Rashid wuxuu hawshiisa ay tahay inuu dilo ragga tuugada ah ragga wax dhaco ragga doonida wato iyo ragga biskoolada wato aniga intaasi kama saabsani baan ku jiray waxaa la ii soo kaashtay dhalinyartaasi
dhalinyartii markay wada hadal bilaabeen oo meesha agaaribe la dhaho jaamacatu street alxayaat dhalinyartii waxay bilaabeen in haraantin laygu qabto mid ka mid ah wejiga uu iga harantiyo markaan kacay aan u geegsan waayay aan gacan u qaaday oo aan isdagaalay waxay ka koobnaayeen markaas 10 qof 2 qof ayaa gadaal uga soo dirsoontay hadduu qabiil wax tarayo axmed rashiid iyo 10ka uu wato waa ogaadeen wiilka ay isugu tagayaan ma ogaadeen laakiin nina kan waa dhashi sayidka waa dhashi sayidka waa kuwii aabayaashii haliyada ahaayeen kuwaasuna waa dhashi amxaarada sidee baa dareenkooda u siiyay iyagoo 10 in hadday damaqasho iyo damiir iyo diin leeyihiin ay u diilaan ninka dhalinyarada hadday ku xeerin waayeen islaamnimo ma ku xeerin waayeen soomaalinimo hadday ku xeerin waayeen taa qabiilka ma ku deyn waayeen ma aha kuwa qabiil yaqaan waa qurun u bareera dicfiga iyo xumaanta kuwa Nairobi jooga hal baa laydinku imaanaya haddaydan ka dhiibin kadib waa la istiigu kayday dooriyaa leela soo baxay doori markii leela soo baxay aniga markii waxaan waa istaagay oo waan isdejiyay waa la istiigu kayday markaan arkay in caqaad badan igu sameeyayo waxaan bilaabay inaan iska dhiciyo sideedii gudiri waxaan isiri balaad waa dhibatay intaan la dhimanin ka hore geestirimo u dhimo gacanayaan u qaaday markaan gacan u qaaday waa layga badiyey maadaama layga badnaa waxaan noqday gees garab waayey oo mataqaanaayo meel iska saari waayey ma aha gees garab waayey kumanaan Soomaaliya ku nool Kenya iyo dunida daafeeda ka damqanaya dibka lagu geystay oo ka dhiidheeya bari Nairobi way guuxaysa dhaawaca lagu geystayna dad badani way ka shaleynayaan wayna ka ooyayaan waa haddii ay ku nool yihiin kuwa garashada adag damiir Soomaaliyeed leh dadnimo Soomaaliyeed leh dhaqan Soomaaliyeed leh dhiig Soomaaliyeed leh umaleemayo in laga waayayo Nairobi haliyeeyo adigoo kala ah oo u bareera dadka damiirka xun ficilka xumay geysteen iyagoo u maraya dariiq sharciyeysan waxa jooga xildhibaano aan ku tuhumaya damiir iyo dadnimo culimada Soomaaliyeed halka jooga ma kuwaan caayo hase ahaatee waxaan u tilmaamay wad ciibowday diracyada si looga faaloodo iyo ayuutada inaad noo sheegtaan dulmigaas dhaqastaan waace haddii maanta gabar fanaanada ficilkeeda laga hadli lahaa waad ka hadli lahaydeen nin iyo naagtii haddii xaaladooda ay noqoto waad muujin lahaydeen waa kaa dulmiga muuqda wadna ka aaminsantihiin maxaa idin helay warisatul anbiyaa baad ahaydeen annagaadna matalaysaan oo khayrka inaad noo faafisaan macnihiinu khayrka inaad noo faafisaan ayaa qorshihiinu diinta waxa u baratay inaad dulmiga diidaan maaha inaad cabsataan waa maxay culimadatan adduunka israacisay oo dulmiga qarinaysa maxaa idin helay yaad wax u barateen miyaadan ilaahay dartii wax u baran miyaan aakhiro laydin weydiinayn dulmiga dhasha loo geysanayo dumarka iyo dhallaanka miyaadan ka dhiidhigi karin oo ka fadwoon karin raggan waxay geysanayaan cawaanta kadib waxaa dhacday in oo mataqaana baabuur gistaan baabuurka markay jirtaan ayagoo hajabaad iyo wax walba wadaan iyo ribaaxshi iyo gacan qaad wax walba waxaa dhacday inay dhahaan yar la yidhahda cadaan model iyo inta majeerteenaaba dhan waxaa balan lagu ah inaa meel saaro oona magaalkiisa nabad ku noolaanin waxay yidhaahdeen adigoo aan majeerteenahayn waxaad majeerteen oo wadaba dhaqlaynaysid waxaad tahay dabadhigis majeerteen waxay ahaayeen dad awooyaasheena xirxiray dad awooyaasheena gumaaday iyo gacqaad fara badan dhalinyartaas aragtida iyo xumaanta ay geysanayaan iyo fikirka qabiile xun ay sameynayaan hadday damiir leeyihiin ay ka dhab tahay dhiig bay ku deyn lahaayeen oo dulmi lama dooneen dhammaan waxay ka koobnaayeen dhalinyaro ogaadeena way soo kaxeeyeen waxaa la ii geeyey ninka xabarshiid ahaa markii xabarshiid la ii geeyey inta xabarshiid la ii geeyey ka hore baabuurkiita ay wadeen hajabaad badan ay wadeen waxay yidhahdeen waxaa next ah oo kugu xijinaynaa ninka la yidhahdo cunaan model maadaama uu yahay majarteen marka waxaa dhacday ina ay isoo wareejiyaan askari la ii geeyo askari walba la ii geeyo wuxuu igu sameynayay gacaqaad waa la irbaaxayey waa la ifeerayey kadib waxaa dhacday in la ii warwareejiyo kadib la ii geeyo ninkii ahaa axmed rashiida markii la ii geeyey wuxuu yidhi wuu ka naaxay wetigeyga iyo dhaawacay saaran wuxuu yidhi anigii raalli kamihi waxay soo wacday maamada hooyada laakiin raalli kamihi wax lagugu sameeyey waxaa weydiiyey haddii aad raalli ka ahayn maxaa kugu kalifay inaad mataqaanaayo aad iisoo adeegsatid dhalinyartaasi
kama nixin naftiisu u baqay kama bixin naftiisu u baqay kartidaadu ka baqay wuxuu og yahay kumanaan kaleeto inuu dhaawacaagu dhibayo degdegna uu jawaabtaada u helayo waa fulay daciif ah dhiig yacab ah weeyaan qabiilna aanan matelin qoysna aanan aqoon wuxuu ilaaw inay nool yihiin dadka xabashida habeen iyo maalin qoraxda iyo waxa weeye qodaxda u mareeyay Soomaaliya idilba wuxuu isleeyahay waa cabsanaysaa adiga iyo kun kula mida ayaa nool ficilkaad muujisana kuwa kale cabsida ka baabi'inaya kuwa kale damiirkooda baaba'ay nooleynaya bulsho Soomaaliyeed buu dhiirigelin yahay SYL dib u soo celinaya إذا أود ولا إلى إيمادي وعلى إلى هذا وحوي وقحوي وحاول إلى إيكيرا يد دليل ودليل أو هاجر سوبر باور ودليل أو أتخلاص إتلالي كسوحتي وحال الله أي درت قبيلة ترتيلا وحيه دليل ما تكجو ومجال حلوك الجوال يمتخلا قوة دليل وحي يشتان أود حداف أوداسي أو أهد إليه وقالين يقول كان وقالين كتريا علي أهد ودني فجرتين ما دام كبر فجرتين وحصل إلهي أو حرج إلهي أو مقال الدواي مركب حال عضي إن أي دادين شرب بوي وحياة أكو حلسي إن يوصو أو إيش أي داد توري أي غلطة توري أي يقول شيء ديك waxaan dhacday kadib inay toori ayaa dadku ku dishay ama toori ayaa wadata waxay yiraahdeen cadaabada iyo dhalinyaro oo asaga dablaacsan haddii nabad ku noolaada magaalka anaga ragmadii waxaa dhacday dhinac warshiidkii uu dhaho waa ka xumaay waxyaaba falkufoosh ugu dhibay markii dhaawacay lii jugeeyey wejigayga dhaawaca laga saaray waxay iima taraysa raaloqo waxbana iima taraysa waxa iigu sameeyey ragga dhaayo iyo dumarka dhaayo sharmi boy wuxuu waxaan u sameynayaa views darteeda wuxuu waxaan u sameynayaa in uu mataqaanaayo oo qabiil iyo waxaas diriyo aniga waxaa la ii dhaawacay waa su-aal aniga ma baqaayo daawadayaasheeda qeybaha qadirituwood dhibaatadaay waxay ii soo wartay oo la iigu soo wajahay darteeda xaqa aan ka hadlay anigana marnaba kama leexanayo inaan ka hadlo xaqayaan ninkaas Soomaaliyeed waa mid mudan inuu bulshada Soomaaliyeed oo Kenya joogta matalo dhiig xalaal ah ku jira waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed oo Kenya jooga inay garab u noqdaan sidoo xaqa ugu istaago oo dhiigiisa ugu horay inuu dulmiga diido inay u muujiyaan oo dadaal u muujiyaan ma haddii ay sameyn waayaan oo haliyeyga dhiigga iyo dhacaankaba laga daadiyay arrinkiisa dhayalsadaan ha ogaadeen gabdhahooduna badbaadi maayaan naftooduna badbaadi mayso xaqa haddii afka la qabto urku ka dilaaca kanu iyo kuwa kanu waa kuwa ilaahay idiin soo diray weeyaan ma ka faa'iidaysato oo daryeelkay mudan yihiin la doonte darajaad ku noolaanaysaa ma dhayalsatee waa la idin lisayaa iyo maalinba mid baa la qaadanaya cadaaladda waa ka baqaaya mana ka gabanaay xabay haddii oo mataqaana igu taalo 20 xabo la igu tiriyo waxaan u dhibanayaa xaqa waxaan u dhibanayaa cadaaladda marka asxaabay dhalinyarta kale loo soo socdo waxaan leeyahay ayagoo la hadlin ayaa loo socdaa is ilaaliya cadaalad mataqaanaa cadaaladda waa u baahanahay Soomaaliya haddii la xishmad iyo mataqaanaa wax walba aad iga haysid aan hal maalin kaa qosliyey aan hal maalin kaa farxiyey tookada waa tookeeda iga farxiyeen anaad iga farxisid inaad waxaan doonayaa aan ii badan baxaan ii istaagaan taasi waxaa waaye waa baryo aad iga baryaya waa kuwa tiktokerada isticmaala iyo youtuberada oo Kenya jooga in la baado la adoonsado waa ogahay in la ciilo oo la cagajiido haddaba tanu waa damiirkiini iyo naftiini tan waxay cadeynaysaa sidaad u kala damiir iyo dadnimo badan tihiin sidaad u kala dhiig Soomaaliyeed leedihiin iyo sidaad u kala doqonsan tihiin ninkaas Soomaaliyeed waa haliyey waa geesi waxaan qirayaa inuu yahay ibn al-halal wata magacii Soomaaliyeed matali kalena bulshada Soomaaliyeed nin ragaad dhawaad wallahi billahi tallahi dambigaaga iyo dambiga waalidkaaga Allah dhaaf kuwiina bilaa damiirka ah ee aamusano
ninkaa ragga ahi wuxuu gartay miyaad garan weydeen miyaysan idin dhalin hooyo soomaaliyeed oo adkaysigeedu uu yahay mid karaamaysan miyuusan ab iyo sinji iyo aabbayaal idiin ahayn raggii soomaaliyeed ee la yaqaanay gartooda iyo garashadooda kuwo 5 dal oo kala duwani ay duulaan ku soo qaadeen ama kuwaas aad noqonaysaan ama kuwo magac ahaan u wato macalish bulshada Soomaaliyeed maanta waa xilligan ku cilaahay maanta ma aha maalin qabiil in caliso kontadanjiirka kan bilaa karaamada nacaska ah ee dulaysan caaqa ah ee waayeel iyo dhal iyo dhalaan iyo dumarba aan deyn fulayga ah ee aan guriga ka bixin af kala ee foosha xun ficilka liita ee danyeerka wuxuu sheegaa qabiil wuxuu oriyoonayo oo caayay deeq darajo xaaskiis wala qabiil hadduu macna iyo maamuus qabiil yaqaan hawiyenimo ku deyn la kana dhahan Axmed Rashiid ee magaca dawladeed ku qaraabanaya ma aha mid damiir iyo dadnimo ogaadanaya mid daaro toona leh iyo mid Soomaaliyeed haddii uu qabiil wax ku deynayo wuxuu ku deyn lahaa inka labada nin dulmigooda ma noqon kuwa waa muso dulmiga qaata oo muujinay cabsi inagoo Kenyaati iska celinay Ethiopian iska celinay Faransiis iska celinay Talyaani iska celinay Ingiriis iska celinay mise noqonay kuwa iyagoo dulooba dadka xildhibaanada ah ee Kenya jooga ee matala bulshada Soomaaliyeed waxaad u dhaarateen dhashiga dhalaanka iyo dadka halka ku dhiban waxa mudan daryeel iyo dadaal in loo muujiyo oo bulshada waxtarkooda oo la yiraahdo doon ninka karo kale ma xawayaankaas iyo kuwa la halmaalay ee ku lamaan ee dadka dulmiga u geysanay waxa la bulshada Soomaaliyeed ee Kenya ku dhacan waxaad gabteen wixii leedii ka mudnaa sababtu waxay tahay maalin kasta dumar baa la afduuba waa darajo xumadina dulmiyada aad arkaysaan waa darajo xumadina iyo dhayalsiga dhayalsanaysaan dhibaatada iyo dhiigga muuqata dadka Kenya jooga wala Kenya bari gooxda oo inanka dulmiga loo geystay aanu maqalno iyo rag iyo dumar waxa meesha jooga idinkoo jijimo soo wada qaata aan arko dareenkeena iyo dadnimadiina inay tahay mid diin ku saleysan oo wali dhiigii Soomaaliyeed ku jiro waa hubaayo kuwa badani way dhibsanayaan oo damiir waa leeyihiin kana kale intaan dib ugu kulmayno warsan iyo war khayr assalaamu calaykum